barnaamijka weydiimo waxaa taabageliyay bangiga dahabshiil. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال مeel kastood naga daawataan ku soo dhawaada barnaamijka weydiimo waxaynu leenahay Ramadaan Kariim barnaamijka weydiimo saacadahan oo kale ayaad ka daawataan shaashada Astaan TV barnaamijka waxaanu ku martiqaadnaa saaxiibo iyo dhalinyaro raba halkan inay ka qaadaan abaalmarin lacageed oo gaaraysa 2,000 oo ah doolarka Mareykanka ah ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena weydiimo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa Badriya Maxamed Cabdullaahi waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho waxaan ku soo barbaaray sidoo kale magaalada Muqdisho waxbarashadeeda dugsiga hoose dhexe sare kulli ilaa heer jaamacadeed hadda oo aan ku jiro sanadkii ugu dambeeyay jaamacadeeda waxaan ka baxay iskuulka dugsiga hoose dhexe sare Al-Maarif waxaan rabaa inaan ka qayb galo barnaamijka Ramadaanka weydiimo Astaan TV waxaan rajeynayaa insha Allah inaan gaaro meesha ugu sareyso. عاوة برنامجكينا ويديمو waxaa marti noogu ah oo martideena ugu horeysa fursad u heshay Badriya magacaaga dhameystiran Badriya Maxamed Cabdullaahi Badriya Maxamed Cabdullaahi hore u daawatay barnaamijka weydiimo sanadii hore ma ka soo qayb gashay kuma suurtagelin waxaan uga warantaa sanadan sidee kugu suurtagashay sanadkan waxay u suurtagashay waxaan arkay fursad Facebook ka soo dhigtay Astaan TV waan ka qayb galay iska diiwaan geliyay kadib waa la ii yeeray kadib maxaad samaysay imtixaan gal oo ku soo baxday mabruuq ku leenahay qaybta koowaad ee barnaamijka waa inaad halkan soo imaato ayay ahayd qaybta kale ee barnaamijka waa inaad astaan ugu imaato oo aan su'aalo toos ku weydiino barnaamijka sida ula socod jirtaba wuxuu leeyahay 3 qayb oo ka kooban yahay qaybta koowaad waa su'aalo 5 haddii aad ku guuleysato waxaa heli doontaa abaalmarin lacageed oo ah 200 oo ah doolar qaybta labaad haddii aad u gudubtid oo aad ku guuleysato abaalmarintu waa laga jibaarmaysaa waxay gaaraysaa 1,000 doolar qaybta ugu dambeysa haddii aad nala soo gaarto oo ah qaybta abaalmarinta ugu badan ay saaran tahay lacagta doolarka ay heli doonto waa 2,000 waxaan ku rajeynaynaa inaad ku guuleysato barnaamijka inta uu barnaamijka socdo waxaa leedahay 3 fursadood fursadda koowaad waa fursadda telefoonka wacashada saaxiibka ehelka walaalka si uu kaaga caawiyo jawaabta fursadda kale ee haysatid waa in aan ku soo koobno jawaabaha fursadda soo koobidda oo aan 50-50 kaaga dhigno haddii shaki kaaga jiray waxaan ku soo kordhaynaa fursad kale oo ay saaxiibada martida noogu ah halkan kugu codeyn karaan haddii ay jirto su'aal aad ka shakisan tahay 3 fursad adiga jaanis kale dooqa iyo diyaar garowga waa adiga ku soo dhawaad Badriyo waa dhaw insha Allah su'aalaha bilaab karnaa bilaab kartaa waxaan ku rajeynayaa guul iyo in halka ka qaadid 2,000 oo doolarka Mareykanka ah su'aasha ugu horeysa ayaan ku weydiin doonaa su'aashu waxay u dhigmaysaa sidatan gabaygii Koofil waxaa tiriyay A Raage Ugaas B Cali Dhuux C Qamaan Bulxan Yuusuf D Sayid Maxamed Cabdulle Xasan gabaygii Koofil waxaa tiriyay A Raage Ugaas B Cali Dhuux C Qamaan Bulxan D سيد محمد عبد الحسن اسكو سؤاشان جوابتيدا gabaygii Koofil waxaa tiriyay سيد محمد عبد الحسن oo D ah سيد محمد عبد الحسن oo D ah kalsoonta su'aashaas jawaabteeda waa kalsoona marka saad fursadahaaga waa kala laaban kartaa ku kalsoonta waayahay jawaabta D inay mid sax tahay aan eegno kontonka doolar ugu horeysa halkan ka qaaday su'aalaha saas u fudud yihiin mise leedahay haddaan 15 su'aal ku weydiino in lacagtaas 2,000 waa qaadi doontaa waa rajeynaysaa lacagtaas waxay ku filnaan doontaa Ramadaanka iyo Ciid labadooda insha Allah way
su-aasha labaad waxay u qoran tahay sida tan: rasuulka nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu xajiyey kow a hal jeer, b 4 jeer, c 2 jeer, d 3 jeer. rasuulkeena nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu xajiyey a hal jeer, b 4 jeer, c 2 jeer, d 3 jeer. su-aashan haddaan isku dayo oo hal jeer ah. hal mar oo xajiyey. Si fiican. kalsoonta su-aashaas oo kalsoona. kalsoonidaada xoogaha ku kalsoonaa dhahay. kalsooni nahay jawaabtaada ugu dambeyso. jawaabteeda ugu dambeyso waa rajeynaya taa sax. waayahay in ay tahay jawaab saxan aan eegno. hambalyo. laba su-aal ayaa si fiican uga jawaabtay. kalsoonideedana aad ayay u badan tahay. waxaan rajeynayaa inaad saas ugu kalsoonaatid. haddii aan ku weydiiyo inaad ku kalsoontahay micnaheedu ma ina jawaabta aniga aqaano. jawaabta iyo go-aanka ugu dambeeya adiga iska leh. su-aasha saddexaad waxay u qormaysaa sida tan: gaalkii ilaahnimada sheegtay ee misena qabay haweeney muslimad ahayd wuxuu ahaa a namruud, b qaaruun, c haamaan, d fircoon. gaalkii ilaahnimada sheegtay ee misena qabay haweeney muslimad ahayd wuxuu ahaa a namruud, b qaaruun, c haamaan, d fircoon. gaalkii ilaahnimada sheegtay ee misna qabay haweeney muslimad ah wuxuu ahaa d oo fircoon ah. d oo fircoon ah. jawaabta ugu dambeysa shaki ma ka qabtaa? maya. middan aad u kalsoon tahay. 3 fursad hortaada taana sida kaaga muuqato inaan kuu soo koobno, inaan telefoon ku wacno iyo inaan dad ku codeeyaan. dib aa u dhiganaya fursadahaas. waaya waa caqli badan tahay. waxaa laga yaabaa in su-aalaha gadaal kasoo adkaadaan. d in ay tahay jawaab saxan aan eegno. hambalyo. sanadkaa kooda badriyo waxaan isleeyahay maanta qofka ugu horreeyey oo haddana qofka ugu horreeyey guulaystay inaan noqotaan rajeynaya hadduu ilaah yiraahdo. aan ku xasuusiyo su-aalaha gadaala kasoo adkaan doonaan markasteeto. niyadaada khayr u sheeg. su-aasha xigta waxay u dhigan tahay sida tan: caasimadda dalka Norway waa a Oslo, b Lisbon, c Monaco, d Warsaw. caasimadda dalka Norway waa Oslo oo a ah, b oo Lisbon ah, c Monaco d Warsaw. su-aashan jawaabteeda isku dayo caasimadda dalka Norway waa a oo Oslo ah. oo Oslo ah. wax badan kama fakeray su-aashan. jawaabteeda ugu dambeyso waayahay inay jawaab saxantaan eegno. hambalyo. badri $100 haysataa ilaa hadda. fursadahagana waa soo badanayaan. su-aashan haddaa ka jawaabtid waxaa gaari doontaa $200. waana isgoyska koowaad. $200 haddaa qaadatid waa ka tegi kartaa meeshaan. jeega waa ku saxiixinaa. laakiin $200 haddaa la tagtid waxay kaana dhaafi kartaa fursadda $2,000. su-aashan waa su-aasha $200 ku gaari lahayd.
su-aashu waxay qoran tahay sida tan waxaa loo aqoon jiray magaalada balcad A Bandir Qaasim B Taytayley C Filaras D Moodin waxaa loo aqoon jiray magaalada balcad A Bandir Qaasim B Taytayley C Filaras D Moodin waa isgoyska koowaad waa $200 aa ku qaada lahayd markaan fursadeyga inaan isticmaalo isku rajeynaa asxaabta rajeynaa inay caawiyaan asxaabta rajeen inay ka caawiyaan asxaabta su-aasha waxay u qoran tahay sida tan waxaa loo aqoon jiray magaalada balcad A Bandir Qaasim B Taytayley C Filaras D Moodin waxaan rabaa waxay haystaan dhammaantiin telefoonka smartphone-ka iyo barcode-ka su-aasha aa isleedihiin jawaabta way ku saxan tahay ayaad ugu codeyn kartaan qofka saaxiibkiina waxaa haysatiin 45 second markaad u codeysaan halkan ay kasoo muuqan doontaa halkan ayaa ka arki doontaa badri waa bilaabatay su-aasha asxaabta waxaa waaye waxaa loo aqoon jiray magaalada balcad A Bandir Qaasim B Taytayley C Filaras D Moodin mar saddexaad iyo mar kale waa ku celinaa waqtiga 10 second ma codeyseen okay waqtiga waa dhammaaday waayahay waa isku soo laaban doonaa saaxiibayaal waagaag saaxiibayaal saaxiibadu badriyo waa codeeyeen su-aasha haddaan kuga celiyo waxay ahayd waxaa loo aqoon jiray magaalada balcad A Bandir Qaasim B Taytayley C Filaras D Moodin saaxiibada codeyntoodu halkan ayay ka muuqataa B O Taytayley waa ka shakisanaa laakiin waa ku raacaa 83% inta joogtaad waxaa laga yaabaa inay qaldan yihiin anigu shakiga iiga jira shaki kaaga jira waa jawaabta ugu dambeysa ogow fursadda aad uga laaban kartid aad ku khilaafso waa haysataa waa ku raaca insha allah waa ku raacaysaa waayahay B in ay jawaab saxan tahay oo ay saaxiibada ay ku caawiyaan aan eego hambali hal mar ayaa waxaa haysay fursadda ah in saaxiibada ku caawiyaan nasiib darro mar dambe kuma caawin karaan wixii hadda ka dambeeya indhaha ay kaa daawan karaan laakiin waxaa ku hartay 2 fursad oo ah fursadda qof inaad telefoon ku wacatid iyo fursadda kale oo aynan kuu soo koobno waxaa haystaa 200 waxaan ku siinaynaa jaaga lacagta abaalmarinta waxaa sanadan ka qayb qaadanayso shirkadda dahabshiil oo barnaamijka taabagelisay
waa mahadsan tahay bedriye lacagtaas haddaa la tegi kartaa haddii aad barnaamijka wadatid fursad kale noo haysataa aad ku joogtid mar kasta lacagtaas safe ku tahay ugu yaraan meeshaan maanta wax la-aan kala tegi maysid hambal ayaa ku leeyahay qaybta koowaad qaybta labaad diyaar muu tahay saaxiibada mala tashanaya inaad sii joogtay inganaa baxdid mahadsanyihin ayagana insha allah adaa go-aansada waaya waayahay su-aasha xigta iyo qaybta labaad ayaan badriyo weydiin doonaa su-aashu waxay u qoran tahay sida tan waxaa ku guuleystay koobkii adduunka ee la qabtay sanadkii 1982 dalka A Faransiiska B Brazil C Argentine D Talyaaniga waxaa ku guuleystay koobkii adduunka ee la qabtay sanadkii 1982 dalka A Faransiiska B Brazil C Argentine D Talyaaniga ciyaaraha sports mu dawataa isku fiican yihiin waxaa waaye insha allah waxaan rajeynayaa inay dhii tahay oo talyaani D oo talyaani oo talyaani ah kalsoonta su-aashaan haddii marka hore ka hor imaatay oo haddana mar labaad hadda gaftid weliga waa xasinood doontaa 300 aa ku weysid دي جوابتك كودا مسمتها بدرية وهي دي إن جواب صح انتهى عن ابنه أمبلي بدرية مو قطعنا ما في إصابة عرفتها و عاد برنامج خيبت وضم بتجاري دونت سياسة ينجعله يكون رجين دونا سؤال حكتا وحيلا ده هي سيدتان وأنا $400 waxaa qur-aanka kariimka lagu xusay magaca nabigeena ee Muhammad nabadii naxariis korkiisa ahaatee ee 2 jeer B 3 jeer C 5 jeer D 4 jeer waxaa qur-aanka kariimka lagu xusay magaca nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam ee 2 jeer B 3 jeer C 5 jeer D 4 jeer waxaa qur-aanka lagu xusay nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasalam 4 jeer oo dhii ah 4 jeer oo dhii ah waxaan kartaa qur-aanka ayna 4 madaxna kugu soo dhacday ama ka badan tahay waay afar leeta rajeenaan jeclahay rajaynaysaa ma hubtaa su-aashaas jawaabteeda waa kugu dambeysaa waayahay D in ay jawaab saxan tahay anagu hambali saaxiibadan ay taageertiin fiican isku fiicnayaan waxay rabaan in halkan lacag qaadid barnaamijka lagu talagalay caawa su-aasha xigta waa $600 waxaynu qoran tahay sida tan webiga Shabeelle waxa uusan marin mid kamida magaalooyinka hoos ku xusan webiga Shabeelle waxa uusan marin mid kamida magaalooyinka hoos ku xusan A Beledweyne B Jowhar C Afgooye D Jilib webiga Shabeelle waxa uusan marin mid kamid ah magaalooyinka hoos ku xusan A Beledweyne B Jowhar C Afgooye D Jilib juqraafigiisa isku tahay Soomaaliya taariikhaha aqrinayo waxaa waaye inaan saxa isku dayo su-aashan waxaa waaye D oo Jilib ah D inuu magaaladaas inay tahay rajeynaa magaalada uu marin webiga Shabeelle option iska haysataa waxaa haysataa inaad qof telefoon ku wactid iyo inaad konton kaaga soo dhigno kuu soo qaabin insha allah wax kale uga faa'iidaysanaa dib u dhigan doontaa dad badan waxaa laga yaabaa ayagoo isla dib uga faa'iidaysan doontaa inay haddana jawaabti gafaan marka markasteeto oo shak kugu jiro fursadahaas aan ku xasuusiyanaya
لا حوغا كرسون تاع وهي دي إن أي جواب صحن تاعي أنا أقول نبليو سؤالشان حكسة أيضا وحاسارن $800 waxay u dhawaanaysaa jaranjarada labaad ee $1,000 sanadii la soo dhaafay abaalmarinta waxay ahayd $1,000 dad badan oo aad ugu dhawaadaa jiray laakiin sanadan waa la laba jibaari 2,000 laga dhigay waxaan rajeynayaa inaa hadda 1,000 dhaafi doontid oo si fiican ugu ciideysan doontid hadduu Ilaahay yiraahdo laba su'aal ayaa kaa xigta halkaas su-aasha waxay u qoran tahay sida tan waxay bilaabatay ku tabinta afka Soomaaliga ee Radio Muqdisho sanadkii 1960 B 1940 C 1979 D 1951 waxay bilaabatay ku tabinta afka Soomaaliga ee Radio Muqdisho sanadkii 1960 B 1940 C 1979 D 1951 haddaan isku dayo su-aashan jawaabteeda C oo 1979 C oo ah 1979 بدري مكل سنة وكل سنة فرصة هاجي ولدي بودينا ويا سي وجوابك قوة بس ويا هي سي إن الجواب صح أنت هاي أنا أقول سيدر بدري جوابتها صح ده معها كن سجال بقول يتضبطني سجالكي جوابتها صح ده وكن سجال بقول يكونتني كوبي aad ayaa ugu dhaweyd inaad jaranjarada soo gaartid laakiin maanta caawa halkan faramarnaan kalama tegin waxaa haysataa $200 oo Mareykanka ah waxaan rajeynayaa sanado kale inaad kasoo qayb gashid barnaamijka aad u maasantahay inaad nagala qayb qaadatay waaga saaxiibayaal waxaan markana u wici doonaa tartamaha labaad ee barnaamijkeena caawa أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجاعي وأبو عبد السلام حسن كودلتي مقدشو إسلام مقدشو كوسا بربارتي سكول كيغا هو صدح يسرى وحان كوسا قاتي الإمام ابن كثير يعني سيدو كاليتو هير جامعات وحان كوسا قاتي جامعات أمد الصوماليات كلية وحبرشادة وحان عاد وقفر أحسنها إنا نكمل نقضو برنامج كويديمة دادهين يسو أستان تي في sidoo kale waxaan aad ugu hamweynaa inaan ka mid noqdo guulaystayaasha sanadkan insha Allah shacabkan waxaan leeyahay daawanay Ramadaan Kariim waaga daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo naga daawanaysaan waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim isku soo noqod wanaagsan markana waxaynu gudagalaynaa qaybteeni kale ee barnaamijkeena weydiimo caawana waxaa martida labaad nasiib u heshay ubax magacaaga saddexan bismillaah magacayga waa ubax Cabdisalaan Xasan Cabdisalaan Xasan kusoo dhawaw Astaan TV iyo barnaamijka weydiimo waan ku dhawaa ma sha Allah aad u mahadsantihiin ubax wajigaaga waa aqoonsaday markii labaad oo barnaamijka qayb gasho aad u weyn maxaa markaan ku sahlay inaa ka soo qayb gasho mar labaad walaahi wadada hore ay furanto ii sahlaneed hay maxaa sameysay markii ugu horeysay su'aasha shanaad aan ku haray tookadan maxaa isdhahay ugu yaraan meel sare waa gaari kartaa insha Allah nasiibkaaga dad kale oo fara badan ayaa barnaamijka soo codsaday ilaa 2,400 qof say kugu suurta gashay imtixaan ma gashay arrintaas bal ugu horeyn waxaan ka arkay barta Facebooka meesha ka soo apply gareey maalmo kadibna waxaa la ii soo diray fariin waan imaaday testi aan galay maalmo kadib hadana waa la soo wacay testiga buundo fiican ka isticmaalay barnaamijka ka qayb galay ugu ma soo dhawaw ubax waan dhawahay farxsanahay mar kale nasiib hadana u heshay inaad ka soo qayb gashid sanadan sidii hore waa ka duwan tahay barnaamijka abaalmarintan intii hore way ka badan tahay haduu Ilaahay yiraahdo barnaamijka sida uu hore ula socotay wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood
صح oo su'aalo ah qaybaha ta koowaad waa 5 su'aal haddii aad ka jawaabto waxay heli doontaa $200 صح qaybta labaad waa 5 su'aal haddii aad ka jawaabtana waxay heli doontaa $1000 qaybta saddexaad waa 5 su'aal ee ugu dambeysa haddii aad ku suurto gasho inaad haleesho waxay heli doontaa $2000 oo Mareykan ah insha Allah إن شاء الله sanadii dhaweyd waxaad tiri su-aasha shanaad aan ku gafay صح ka waran maxaa dareentay dadka faamilkaaga iyo markii aad heli weysay sidee u arkeen والله wax walba hata qadar waa taa qadarta aaminsantaa wax kugu dhacay ma lahan sidoo kale Soomaali waxay ku maamaadaa calaf la cunaa insha Allah hadduu calafkeyga noqdo anigu ma xumaanin waxaan aad ugu faraxsanaa inaan noqdo qof istijaabin karta aqoonteeda waayahay aqoon nasiib oo la isku daro waaye barnaamijka guud ahaan insha Allah anagana guulan ku rajayn doonaa barnaamijka intuu socdo waxaa leedahay 3 fursadood oo kala ah fursadda wicida telefoonka qof saaxiibka ehelka walaalka si uu kaaga caawiyo waxaa leedahay fursadda soo koobidda jawaabaha oo konton 50-50 inaan ku soo koobno waxaa kaloo leedahay fursadda saaxiibada halkan martida noogu ah ay kugu codeyn karaan su-aashii aad shaki ka qabto saddexdaas fursad ayaa haysataa 15 su-aalna jawaabahooda ayaan kaa rajaynaynaa insha Allah intaasoo fahamsan tahay waa tahay waa bilaabi karaa soo maha aad u weyn su-aasha ugu horeysa waxay u dhacaysaa sida tan caasimadda dalka Portugal ama Portugiiska waa A Moscow B Rome C Oslo D Lisbon caasimadda dalka Portugal waa A Moscow B Rome C Oslo D Lisbon بسم الله الرحمن الرحيم waa su-aasheeda ugu horeysay caasimadda dalka Portugal waxaan ku jawaabaa xarafka D ama Lisbon xarafka D ama Lisbon wax ku kalsoon tahay aad u weyn markaad tiraahdo waxaan uga fahmaa 100% aad u weyn waayahay D in ay jawaab saxan tahay aan eegno jawaab sax وما تنتهي سؤال كواد أو سؤال بديتي قفكم سؤال كواد كجواب نفسك صوت مقيسه هل سؤالك جوابه ولي أفرع يقول من سياو قارتو إزجوز كوجه الرأي سؤاله سؤال شو وحي أقرنتها هاي أما أقول لك مثال سيدة نبي محمد نحريس إنما تقول لكم كي ساعته وحكوا أسني هاي مقالة ده دايف بي مكة سي مدينة دي قبة نبي محمد نحريس إنما تقول لكم في ساعته وحكوا أسني هاي مقالة تايف بي مكة سي مدينة دي قبة بسم الله الحمد لله سؤال شيء ذا لبعته نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مقالة وكو آسانيها waxaan filaa jawaabta saxda inay ku jirto xarafka C magaalada Madiinatu Munawwara xarafka C oo Madiinatu Munawwara aad u weyn subax fursadaha gabadh kasta xasuusnaa waxaan saddex fursadood inay furan tahay waaya jawaabta ku dambaysa waa C Madiinatu Munawwara inay Madiina jawaab sax tahay aan eegno marka nambaliyo ilaa hadda laba su'aal ayaad si sax uga jawaabtay waxaa haystaa $60 waxaa u dhowdahay isgoyska 200 haddii aad su'aalaha soo socda ka jawaabtay saddexda ah waxay u dhigmaysaa su'aasha kale sida tan waxaa la qoray farta Soomaaliga sanadkii 1970 B 1972 C 1975 D 1977 waxaa la qoray farta Soomaaliga sanadkii 1970 B 1972 C 1975 D 1977 بسم الله الحمد لله
su-aasheeda saddexaad oo sanadkii la qoray farteena soomaaliga jawaabta saxda waxaan rajeynaa inay ku jirto xarafka b waana 1972 ka hor wadankeena waxaa la qoran jiray luqadaha carabiga ama talyaaniga dadku wax iskugu qori jireen oo soomaaliya oo dhan muusan jirin 1972 farteena la qoray waa b jawaabteeda marka nacam kalsoon tahay sidaa u sheegaysid iyo xogta aad ka hayso waa badan tahay kalsoonideeda ka waran maasha allah 1972 waayahay b in ay jawaab saxan tahay aan eegno hambalyo ubax waxay u egtahay sanadkan inaad soo diyaar garowday oo si fiican aa usoo akhrisay maxaa samaysay sanadii intii markii diyaar garowgaa samaysan ma noo sheegi kartaa walaa waxaan sameeyey male wax walba waa nasiib sanadka hore aan aada u dadaalay inta u badan taariikhyahan aqriya google-kan kala soo degaayo su-aal walba su-aalaha aqrinaysa waa oo isugu jira aqoon guud wadamada caasimadahooda lacagay isticmaalaan kuwa diinigana inkastoo adiga 60% aan ku fiicana oo xiliyada iskuulkayga aruuri jiray si fiican marka wax walba waa nasiib iyo calaf insha allah waayahay nasiibkaaga inuu fiicnaadaan kuu rajeynaya iyo aqoontaadaba intaba su-aashan waxay leedahay sida tan wuxuu dhacay dagaalkii dhagaxtuur sanadkii 1959 b 1939 c 1949 d 1960 wuxuu dhacay dagaalkii dhagaxtuur sanadkii 1959 b 1939 c 1949 d 1960 afartaas jawaabood ee kortaada taala bismillaahi raxmaani raxiim su-aashan oo sanadku dhacay dagaalkii dhagaxtuur waxay tahay xarafka saxda ah c 1949 haa waxaa dhahdaa xarafka saxda ah waa c waa hubtaa haa waa hubaa fursadahaaga weli waa ii banaan yihiin weli ku banaan yihiin gadaala ka isticmaalaysaa gadaala ka isticmaala wixii u baahdo insha allah waayahay c jawaab saxan inay tahay aan eegno hambali su-aashaan haddaa ka jawaabtid waxaa heli doontaa $200 waana ku saxiixi doonaa oo ku siin doonaa jeeggaas hadduu ilaahay calfo insha allah hadduu ilaahay raaco su-aasha waxay leedahay sida tan maalinta la taagan yahay carafa ama banka carafa waxay ku beegan tahay a 8 dulxaj b 5 dulxaj c 10 dulxaj d 9 dulxaj maalinta la taagan yahay carafa waxay ku beegan tahay a 8 dulxaj b 5 bisha dulxaj c 10 bisha dulxaj d 9 bisha dulxaj bismillaah alxamdulilah su-aashan oo ku beegan maalinta banka carafa la istaagsan yahay ani ahaan waxay la tahay 10 dilxaj hata waxay tahay maalinta carafa oo la iidaay su-aasha saxda waxaa isleeyahay xarafka d maalinta 9aad banka carafa la taagan yahay ummadda inta kale xajka awoodinne way soomaan masha allah soo xarafka d aan ku adkeysanaa 9 dilxaj fursadahaagina ma isticmaalaysid maya dib u iga yaala insha allah haddii jawaabtaan sax noqoto waxaa leedahay $200 jawaabtada kugu dambeysa 9 dilxaj haddii aad gaftid waxba ma lahaan doontid dib ma laha waayahay d in ay jawaab saxan tahay aan eegno hambaliyo ubax qaybta koowaad iskuulka koowaad ayaa soo gaartay waxaan ku siin doonaa jeeg ay ku qoran tahay $200 oo Mareykanka ah oo ay ku siinayso shirkadda dahabshiil oo ah barnaamijka shirkadda taabagelisay jeeggaas ayaan ku siin doonaa barnaamijka waxaa fursad u leedahay inaad sii wadato
hambali caawa ubax 200 meesha kala tegaysaa waxa ugu yar waxaa laga yaabaa inaad 2 kun kala tagto qaybta kale diyaar mu tahay mise waa baxaysaa maya diyaaraan u ahay saaxiibada ma la tashanay inaad joogaysa in kale maya go-aankaadaas adaa gaari anaa iskale insha waayahay astaani iyo shirkadda taabagelinaysana aadaan ugu mahad celinaa waayahay hambalyo qaybta kale ee 5 su'aal ee ku xigta ayaan galaynaa haddaad diyaar u tahay diyaara waa insha allah waayahay su-aasha qaybta labaad ugu horeysa waxay leedahay sida tan waxaa la aasaasay hay-adda qaramada midoobay sanadkii ee 1966 b 1946 c 1945 d 1960 hay-adda qaramada midoobay waxaa la aasaasay sanadkii ee 1966 b 1946 c 1945 d 1960 bismillaah wareegga labaad qaybta labaad su-aashan xoogaa waxaa iiga jiro shaki marka waxaan jeclaysanaa fursadeeda inaan isticmaalo daawadayaasha 3 fursad ayaa haystaa inaan kuusoo koobno inaad telefoon wactid iyo in aad saaxiibada halkan jooga ay su-aasha u maleeyaan inay tahay kugu caawiyaan oo kuu codayaan asxaabta aada wejiyada qurxoon oo idaawanaya rajeynaya inay iga caawi doona insha allah saaxiibadaa weydiisanaysaa aada u weyn waayahay waxay haysatiin saaxiibada ayaa codayn doona 45 second ayaa haysatiin waxaan rajeynaya in ubax caawin doontiin intaas aynu codaynaysaana waxaan aadi doonaa qadar yar oo break ah dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto blay store iyo abstore ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websayteka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga iidahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed dahabshiil bank international mastercard waa ammaan waana la heli karaa waxaad ku isticmaali kartaa dunida oo idin ku bixi biilasha ku dukaamayso oo onlaynka wax uga iibso waxaan ATM-yadii ugu badnaa kuugu diyaarinay dhammaan goobaha muhiimka ah ee magaalooyinka ku hel debit iyo credit su-aasha ay saaxiib ubax idin weydiisatay waxay u qoran tahay sida tan waxaa la aasaasay hay-adda qaramada midoobay sanadkii ee 1966 b 1946 c 1945 d 1960 hay-adda qaramada midoobay waxaa la aasaasay sanadkii ee 1966 b 1946 c 1945 d 1960 waxaan rajeynayaa inaad fahamtiin oo aad u codayn doontiin su-aasha jawaabta ugu saxan si aad saaxiibkiin ubax u caawisiin waxaan is leedahay rajadaada weli codaynta ay ku jiraan ma buuxsamin waayahay codaynta waa idinka dhammaatay natiijada halkan ku qoran waa ujeedaa waan ujeedaa 85% waxay isku raaceen xarafka c oo ah 1945 kuma qasbanid inaad raacdid go-aankooda adiga ayaa ah qofka ugu dambeeya go-aanka gaari kara waa ogsoonaa laakiin inta badan intaas isku raaceen maasha allah maadaama anay su-aashan shaki iiga jirtay
meesha laysku raacay waa xarafka C 1945 taasaan ku adkeysanaa taas ku adkaysanaya weli laakiin laba fursad leedahay daxta shaki kaaga sii jiro insha Allah dib ka isticmaala hadu ilaahay dib ka isticmaali doontaa jawaabta ugu dambeysa waa C 45 waayahay C in ay jawaab saxan tahay oo ay saaxiibada ku caawiyaan aan aagin baliya هذا يوم حسنتين إذا كان هل جرى جرايا كنت بسين نصيب درو فرصة كلام اللي هدي هذيك يلا بدأ فرصة أيام كوسو هاري dib male insha Allah markiiba waxa ku shakinaya 46 meed mise 45 وايه waxaan rajeynayaa in fursadaha kaleetana sidaas oo kale ku caawiyaan waayahay su-aasha xigta waxay u qoran tahay sida tan waxaa lagu qabtay koobkii adduunka sanadkii 2002 ee Koonfur Afrika B Jarmalka C Korea iyo Japan D Faransiiska waxaa lagu qabtay koobkii adduunka sanadkii 2002 ee dalka Koonfur Afrika B dalka Jarmalka C Korea iyo Japan D Faransiiska waxaan isticmaalaa fursadeeda oo ay call inaa qof wacdo qof wacan doontaa maadaama ciyaaraha isku fiicneen fursadda laba fursad haysataa inaa qof wacdid inaa konton kuu soo qaadano 50 gadaala ka isticmaala insha Allah callka hadda rabaa waaya callka yaa ku wacna walaalkay Axmed walaalka Axmed wala hadal doonaa marka aad su-aasha weydiinaysid adiga su-aasha weydiin doona sax marka uu naga qabto su-aasha adiga weydiin doona waxaa haysataa hal oo markuu ku yiraahdo waxaa haysataa 30 ilbiriqsi oo aad su-aasha ku weydiisid waxaan rajeynayaa si degan inaad u weydiisid insha Allah oo aad jawaabahana siisid kana dhegeysid 30 second haduu ilaahay idmo waxaan ku wacaynaa Soomaha walaalka waay telefoonka ayaan wacaynaa insha Allah tacaala أحمد كم رقمه؟ وش هذا؟ هلا هلا السلام عليكم أحمد. هلا هلا مين قشا؟ في عنا. وعباس عبدي أستان ويديمو. يا. بقى وعباس عبدي وأستان ويديمو ولا سيتا؟ لا. أحمد وحيلا فديس أوبح. si fiican ma maqashaa kuma maqlataa ubax ayaa ila fadhisa waxay rabtaa in ay su-aal aan weydiinay caawimaadkaaga dalbato barnaamijka weydiimo diyaar muu tahay diyaar waay codsi maxay ku ruqaysaa okay ubax ayaan kugu wareejin doonaa haddaad si fiican ii maqashid su-aasha ayadaa ku weydiin doonta waxaa haysataa 30 second marka ay su-aasha ku weydiiso waxay ka bilaabanaysaa marka ay ku weydiin doonto intaas ma fahamtay si fiican ma fahamtay diyaar waa min su-aasha ayadaa ku weydiin doonta ubax la hadal Axmed waxaa lagu qabtay koobkii adduunka sanadkii 2002 Koonfur Afrika 2 Jarmalka 3 Korea iyo Japan 4 Faransiiska koobkii adduunka 2002 waxaa lagu qabtay Koonfur Afrika Jarmalka Korea iyo Japan Faransiiska ku celi أحمد waxaa ku telefoonka 30 second oo dhameystay sax haye jawaabta hadda asiga waxaan ka fahmayay su-aal qabyo ah oo South Korea inuu dhahaan rajeyna marka anigana waa iska fiirnaa Koonfur Afrika xaqaya walaal inaad iska fiirsid waxaad isticmaali kartaa optionka hadda shaki kaga jiro sida su-aashaan 2002 2002
waxaan isticmaalaa xarafka C Korea Japan. Korea Japan. xarafka C. aad u weyn. fursad kale haysataa oo ah inaad konton ka dhigto. dib ma laha. waa ku kalsoon tahay jawaabtaada ugu dambeyso. saasaan rajeynaa nasiibkaan fiirinaa. hay nasiibkaagaan tijaabino si in ay jawaab saxan tahay eegno. ambali neefa ka soo boqod markaan laakiin fursadaadii waa ka faa'iidaysatay inkasta oo Axmed su-aalasha uusan dhammaystirin Korea ayuu kuu sheegay. anna hadaati indhaa mariyo maskaxda kuma qaban karto waayo wax markay niyadaada galayaan aad xifdina aniga ebadkeeda ciyaaro waan necbanaa. agteeda marka ku dhageysan jira waa dhibaatay jir waa ku buuqi jiray. si fiican marka waa aqriyay wax micno ma sameynayso. waa soo akhrisay. waa soo aqriyay waaba baxeen meel ay ka baxeen kaale. waayahay ubax hadda waa kasoo gudubtay waxaa laga yaabaa inay su-aalo kale soo laabtaan laakiin kontankaaga haystaa su-aashan soo socota haddaa ka jawaabtid waxaa leedahay $500. su-aashu waxay u dhigmaysaa sida tan. guurowga waa nuuc ka mid ah maansada abwaankii ugu caansanaa ee tirin jiray wuxuu ahaa A. qamaan bulxan yuusuf B. maxamed gacal xaayow C. careys ciise kaarshe D. cali dhuux aadan. guurowga waa nuuc ka mid ah maansada abwaankii ugu caansanaa ee tirin jiray wuxuu ahaa A. qamaan bulxan yuusuf B. maxamed gacal xaayow C. careys ciise kaarshe D. cali dhuux aadan. bismillaahi raxmaan raxiim. su-aashan jawaabteeda haddaa isku day waxay noqonaya xarafka C careys ciise kaarshe. C oo careys ciise kaarshe ah. ku kalsoon tahay ubax. walaa inta badan asaga guurooga isaarka kuma qalaya. saarkii guriga asaga kuma qalaysa. aad u weyn. waa joogtada kugu dambeysa mar walba xasuunaa inaad fursad haysatid. waa ogaa 50-50 ay dhiman. ha C careys ciise kaarshe. jawaabta kugu dambeysa waa insha allah. waayaa C in ay jawaab saxan tahay aan eegno. nasiib xumo. dhib ma laha. nasiib xumo su-aashaas jawaabteeda saxdaa waa maxamed gacal xaayow. gurowga abwaanadkii ugu caansanaa waxaa tirin jiray maxamed gacal xaayow. ubax waxaa haysataa jeeg ay ku qoran tahay $200 oo ay kugu talagashay shirkadda dahabshiil oo ah barnaamijka taabgelinayso. waxaan kuu rajaynayaa sanado kaleeto iyo guulo kale. waa mahadsan tahay. adinkaan mudan dhammaantiin insha allah. waagaga daawadayaal sida aad la wada socoteenba ubax ayaa ugu dambeysay caawa barnaamijkeenii xalqadiisa koowaad barnaamijka weydiimo. barnaamij midkan la mida intaynu ku kulmi doono waa dhammaan bahdaeeda oo isku duuban oo idinle sidaasii nabadgelyo. barnaamijkan mid lamida intaynu ku kulmi doono waxaan idinku dhaafeynaa sidaasii nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ramadaan kariim.